booska burcadda ee alice ayaa rasaas kaga dhacday laabta midig. artur wuxuu garwaaqsaday in xabaddu aad u gashay gudaha jirkeeda. wuxuu ogaa inuu si degdeg ah uga saaro, haddii kale alice waxay geli lahayd khatar nafgooyo. alice waxay tidhi ma rabto inay dhimato. isla markiiba waxay soo bixisay toorey oo siisay artur iyadoo ka codsatay inuu xabadda ka saaro. nasiib wanaag, artur wuxuu yaqaanay qalliinka degdega ah ee aasaasiga ah. markii uu daaweynta dhammeeyey, laba nin oo xooggan oo madax cad leh ayaa si caro leh u soo galay. artur isla markiiba wuxuu qaatay tooreydii wuxuuna istaagay alice horteeda si uu u difaaco. laga bilaabo wakhtigaas, alice waxay si qoto dheer u jeclaatay artur. markii ay ogaadeen in artur badbaadiyey madaxdooda, waxay bilaabeen inay si degdeg ah u jilba joogsadaan iyagoo cafis weydiisanaya. kadib alice iyo artur ayaa isbartay. artur aad buu ula yaabay markii uu maqlay magaca alice, sababtoo ah alice waa hogaamiye burcad oo aad looga baqo, mana jiro qof ku nool Philadelphia oo ku dhiirada inuu ka hor yimaado. laakiin maadaama artur badbaadiyey nolosheeda, alice waxay ahayd qof abaalgud yaqaan. waxay amartay in loo keeno baarar dahab ah oo qiimahoodu malaayiin yahay. laakiin artur wuxuu u arkay badbaadinteedu inay ahayd wax caadi. wuxuu diiday hadiyadaas qaaliga ah. markii alice aragtay inuu dahabkii diiday, waxay u malaysay inuu jecel yahay dumarka quruxda badan. waxay u keentay dhowr dumar oo aad u soo jiidasho badan. artur wuu ku dhacay quruxdooda, balse wuu qariyey dareenkiisa isagoo iska dhigay inuusan waxba rabin. markii ay sidaas noqotay, alice waxay go'aansatay inay nafteeda ugu abaalguddo. waxay ku tiri artur inuu guursado, haddii kale way dili doontaa. artur isagoo baqaya ayuu dib ugu dhacay fadhiga. kadib labada ilaalo ayaa u soo dhaqaaqay si ay u garaacaan. artur door kale ma uusan helin, wuxuuna oggolaaday inuu guursado alice. maalintii xigtay, artur ayaa hurdada ka toosay. markuu indhaha kala qaaday, wuxuu arkay rag badan oo sariirtiisa ku hareeraysan iyagoo quraac u wada. arrintaasi aad bay uga nixisay. quraacdii wuu ka tegey, wuxuuna ka cararay guriga. alice isla markiiba waxay amartay raggiisa inay ogaadaan halka artur degan yahay. waxay qorshaysay inay u tagto iyadoo wadata yarad aad u weyn si ay guur u dalbato. artur wuxuu la noolaa gabar aan hadli karin oo la yidhaahdo Wendy. markaas ayay aragtay calaamad dhunkasho oo qoortiisa ku taal. artur wuxuu been u sheegay isagoo yidhi waa qaniinyo kaneeco. isagu ma ogeyn in alice iyo raggiisu ay durba ku soo wajahnaayeen gurigiisa. markii alice albaabka timid, waxay aragtay Wendy oo dawo marinaysa qoorta artur. alice waxay u malaysay in Wendy ay tahay gacalisada artur. isla markiiba aad bay u xanaaqday. intii ay ilaaladu isku diyaarinayeen inay gudaha galaan, nin burcad ah oo la yidhaahdo David ayaa isaga iyo raggiisii xoog ku soo galay guriga artur. maadaama artur loo arkay nin liita, alice waxay go'aansatay inay daawato waxa dhacaya. David wuxuu watay waraaqa uu ku sheeganayo kirada guriga, biyaha iyo korontada, isagoo ku amraya artur inuu lacagta bixiyo. artur wuxuu sheegay inuu hore u bixiyey dhammaan lacagahaas mulkiilaha guriga. xitaa wuxuu tusay rasiidkii caddaynta ahaa. laakiin David wuxuu ku adkaystay inuu haddana isaga siiyo lacag. wuxuu ku hanjabay haddii uusan bixin inuu guriga xiran doono. artur isagoo aan haysan xal kale ayuu bixiyey lacagtii yarayd ee uu watay. laakiin David wuxuu sheegay inaanay weli ku filnayn. markii uu arkay in artur uusan lacag kale haysan, ayuu indhaha ku dhuftay Wendy isagoo damac xun qaba. wuxuu amray laba nin inay qabtaan Wendy. isla wakhtigaas, alice waxay ogaatay in Wendy ay tahay walaasha artur. waxay markiiba ku amartay labadeedii ilaalo inay gudaha galaan oo ay badbaadiyaan. markii David ku sigtay inuu fal xun sameeyo, alice ayaa soo dhex gashay oo joojisay.